wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene ayaa maanta si rasmi ah magaalada Jowhar ugu daafuray shirka wada tashiga qorshaha isbeddelka qaran ee 2025-2029 ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Shirkan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer sare ah oo ka socda dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay ku jiraan xubno ka mid ah golaha wasiirada, agaasimayaal guud iyo maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar. Shirka oo socon doona maalmo dhowr ah ayaa lagu falanqeyn doonaa tiirarka qorshaha isbeddelka qaran oo ay ku jiraan maamul wanaagga, kaas oo diiradda lagu saarayo siyaasadda loo dhan yahay, sareynta sharciga, amniga iyo dib u habeynta hay'adaha dowladda, horumarinta dhaqaalaha, horumarinta arrimaha bulshada iyo karaanka aadanaha iyo deegaanka iyo la qabsiga cimilada. Inta lagu guda jiro shirka waxaa si gaar ah loo qiimeyn doonaa fursadaha iyo caqabadaha ka jira Hirshabelle, xalalka ilaa iyo hadda shaqeeyay iyo xeeladaha lagu horumarin karo qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedka 5 sano ee soo socota. Ujeedada ugu weyn ee shirka waa in la diyaariyo khariidada horumarineed ee lagu hagayo Hirshabelle 5 sano ee soo aadan, taas oo waafaqsan jihada guud ee qorshaha isbeddelka qaran. Khariidadan ayaa noqon doonta mid muhiim u ah horumarinta bulshada, iyadoo la isku dubaridi doono istiraatiijiyado si looga faa'iideysto fursadaha jira iyo in la xaliyo caqabadaha horyaala dowlad goboleedka. Shirkan ayaa muhiim u ah hirgelinta qorshaha isbeddelka qaran, wuxuuna horseedi doonaa horumar waara oo loo dhan yahay, kaas oo ka faa'iidi doonaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool dowlad goboleedka Hirshabelle. Juula Shaakir, Dalsan TV, Muqdisho. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Cali Cajiib oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya iyo wasiirka qorsheynta maalgashiga dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Cali ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay, iyagoona sidoo kale sheegay in shirkan muhiim uu yahay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta loo diyaar garoobayo qofkii berito wax uu tabi lahaa. Maanta waxaa habboon inuu aragtidiisa ku biiriyo intii aad berito haddii aad heer state joogtana federaalka su-aalihi aa weydiin lahayd inaad maanta horumarsatid si uu berito aa kula xisaabtatid. sidaasi lamida madaxda reer Hirshabelle bulshada hoos timaada iyaguna si ay ula xisaabtamaan madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo wasaaradaha reer Hirshabelle si ay ula xisaabtamaan iyaguna maanta inay aragtidooda ama baahiyahooda hortabinta leh inay maanta soo bandhigaan. wasiir waa soo dhawow marka koowaad, xildhibaan wasiir soo dhawaada. halkan waxaa ku dhan dowladda Hirshabelle golaha fulinta. maanta waxaan u dhannahay inaan ka qayb qaadano National Transformation Plan, qorshaha isbeddelka qaran. inaan reer Hirshabelle haddaan nahay keen ugu weyn iyo keen ugu yar inuu qayb ka noqdaan rabnaa. waxaan rabnaa baahi walboo jirta, sector walboo ka jirta inaan miiska keenaan rabnaa si qorshaha 5 sano soo socoto 25 ilaa 30 aan waxaan wax cad aan u yeelano, aan ognahay waxaan sheeganay, waxaan nooga shaqeynayo ognahay oo qaranka nooga shaqeynayo, inay ka imaadeen baahiyaha hoose dadka deegaanka ah, dhalinyaro hadday yihiin, haween hadday yihiin, ganacsato hadday yihiin, dadkii baahiyaha gaarka qabay, wasaaradihii la macaamilayay dadkaas ayagoo pillars kala duwan kala jira. waxaan rabnaa marka waa u dhannahay maanta insha allahu tacaala. Wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene ayaa dhankiisa kulmad ka jeediyay madasha, isagoona ku bogaadiyey mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkan ka qayb galaysa, isagoona sidoo kale sharaxay muhiimadda shirkan uu leeyahay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hoggaanka Hirshabelle oo madaxweynaha inoogu horeeyo iyo wasiiradii saaka sida khaaska ahaa inoogu soo dhaweeyay ani iyo wafdigeyda magaaladan caasimadda Jowhar, airportka ilaa iyo madaxtooyada, oo si aad iyo aad u mug leh oo qiimo leh inoo soo dhaweeyay. aadan idinka mahadcelina anoo ku hadlaya magaca wafdigii saaka yimid. maanta meeshaan tiim aad u xoogan oo maasha Allah sharfoon oo xoog leh ayaa maantan joogo. isbuuciyadii la soo dhaafay waxaan shaqadan consultationka iyo wada tashiga aan u tagaynay steedyada oo dhan, Galmudug, South West, kulli waan tagnay. tiimka waxay kale ayagana 15 qofood ka mid ku soo suubiyeen Jubbaland. maantana waa arkiisaan sida mugga leh heer wasiir, heer xildhibaano, agaasimayaal guud,
la taliyaal iyo madaxtooyada agaasimaheedii iyo maayarkii iyo la taliyaasha madaxweynaha iyo everybody roolka ay ku imaadeen waa rool muuqdo oo aad iyo aad ay muujinaysa muhiimadda ay idin leedahay inaad qayb ka noqotaan wada tashiga la rabo qorshahan isbeddelka qaranka ee Soomaaliya loo yegleelayo inaad qayb ka noqotaan aad iyo aadaan idinku bogaadinayaa horta ka soo qaybgalkaas waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hoggaanka Hirshabeelle oo madaxweynaha inoogu horeeyo iyo wasiiradii saaka sida khaaska ahaa inoogu soo dhaweeyay iyo wafdigeeda magaaladan caasimadda Jowhar airport ilaa iyo madaxtooyada oo si aad iyo aad u mug leh qiimo leh inoo soo dhaweeyay aadan idinka mahadcelina anoo ku hadlaya magaca wafdigii saaki yimid waxaa maalmahan sidoo kale joogay oo la tashiyo gaar ah la sameynayay wasaaradaha qaarkood iyo wasaaradii halbowlaha u ahayd qorshahan guddi khubaro ah oo 10 iyo dhowr ka kooban oo idin la joogi doono oo maanta barnaamijka hadda inoo daadihinayay ayagana waa guddi oo uu hogaaminayo isku dabaridaha nationalka qorshaha isbeddelka qaranka ee Mr. Cabdi Cusmaan oo hadda inoo soo jeedinayay iyo sidoo kale la taliyaal qaybaha kala duwan ee tiirarka maxaan ku dhahaa qorshaha mid dhaqaale horumarka dhaqaalaha horumarka arrimaha bulshada climate-ka iyo waxyaabaha la xiriira ee isbeddelka cimilada maxaan ku dhahaa tiirarka way badan yihiin qaybaha kala duwan waana ogtiin tiir kasta waxaa ku abtirsada wasaarada kala duwan ama ha noqoto kuwa cadaaladda iyo rule of law iyo ka shaqeeya ama ha noqoto kuwa dhaqaalaha ka shaqeeya ama ha noqoto kuwa socialka ama waxbarashada iyo caafimaadka iyo ka shaqeeya marka tiirarka way kooban yihiin laakiin mid kastaba bahyo badan ay leedahay marka aad iyo aad aan si gooni ah idinku mahadcelinayaa arrintan qorshahan isbeddelka qaranka waxaan hadda ku jirnaa qorshihii horumarka qaranka soo bilowday 2020ka oo gabagaboobaya 2024 December sanadkan inta uusan dhamaanin qorshihii bedeli lahay waa qorshahan waxaan shaqadiisa soo bilownay 2024 January December oo dhamaan doona haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa marka annaga waxaan halkan u joognaa oo kaliya wax la dhaha bogaadin iyo furitaan shaqada dhabta aadinka iska leh insha Allah adinka iyo qubarada marka maadaama qorshuhu iyo sheekadiisa iyo sharaxaadiisa ay aad u dheereen waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinku soo koobo maadaama ay shaqada xoogeeda adinka iska leedihiin muhiimadaasna aan weyneyno kan madaxweyne ahaan heer federaal iyo heer federaal ra'iisul wasaare iyo wasaaradda federaalka mid kastaba wasaaradaha ee la shaqeysa wada shaqeyntaana ka dhaxaysta tan cadaaladeeda gooniga federaalka kala dhaxeeyo ayagana waan kala soo tashanay gobol kastana waxaan u tagnay in midkooda gooniga u tagno oo aan beeraha u tagno oo aan mid kastaba roolkeeda ay ku lahaato muhiimadaas uu leeyahay ragga inta fadhiya iyo gabdhaha inta fadhiyana waa dad khibrad iyo aqoontii waxaan lagu dari lahaa leh aadan idinka mahadcelinaynaa waana soo koobayaa barnaamijka si official inoogu furan yahay Juula Shaakir Dalsan TV Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet